qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar joojisay waxbarashadeeda sidii walaalaheeda u koriso. intaa keliya ma ahane markii la soo doontayne diiday inay guursato sidii walaalaheeda u koriso. haddaba gabadhaas maxaa u dambeyn doona, halkii ku dambeyn doontaa? walaalaheedane سي أبال كودي دونان. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورانا جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة عصر. قصة دينا ما أنت وحي كصاب سنتهي كبر نفت هذا إيه فرحة هذا أخرتي ولا له هذا سي أسو كوريسو إيه آغا فرحسو. waxaa jiri faamil hooyey aabbo iyo 5 caruur ka koobnaayeen. gabar ayaa curadka ahayd. aabaha shaqadiisa waxay ahayd wuxuu maalintii soo qaado waa la cuni jiray, shaqo weyn muusan haynin. hooyadana sidoo kale guriga iska joogtay. gabdhihii caruurta markay soo weynaadeen ay gabadha weyn ay soo gaartay 18 sano ay soo gaartay, aabihii ayaa dhintay. waxaa jirta caruur yar yar, kan ugu yarna wuxuu jiraa 3 sano. المهم آبيه waa la duugay. faamilku waa wada fariisteen. wax la sameeyay ma la yaqaano. hooyadii wax experience ama shaqo mbuuleedka ma soo shaqeynin. gabadhii high schoolka sanadkaani dhamaysa waxay rabtaa jaamaca inay aado. maxaa la sameeyay? waa la fikiray. caruur yar yar joogto. adeerradii loo tagay. adeerradii si fiican uma soo dhaweynin faamilka. haddana waxay u tageen abtiyadii u tageen. abtiyadiina waxay dhaheen annaga waxay hal maal laba maal cunto waa idin siin karnaa, laakiin ilmo adeerkooda waaye, adeeradiina inay idin biilaan ayaa idin laga rabaa, annaga ma ahan. almuhim hooyadii iyo gabadheeda weyneed way tashteen oo waxay ku tashteen hooyadii inay shaqayso, gabadhan inay iskuulkeeda sii wadato. gabadha weyn marka hore way diiday. hooyadaa qasabtay. hooyadii shaqo bilowday. hooyadii isbuuc markii shaqaynaysay way soo wareertay oo waa la soo celi. guriga la keenay, dhakhtaraa la geeyay. hooyadii waxaa lagu sheegay xanuun aad u xun lagu sheegay, inaysan shaqayn karin ee guriga joogta ayay iyadana noqotay. gabadhii weyneed marka arrintii waa ku adkaatay. hooyo shaqaynaysa ma lahan, aabihii waa dhintay, jaamacay isku qortay, adeero oo caruurta biilaysa ma joogaan, abtiya dhahayeen annaga caruurta biilayeen ma joogaan. way fikirtay, jaamacadii tagtay, way soo drop garaysay classeski. hooyadeeday u timid waxay tiri hooyo caruurta sii hay inta aan soo shaqaynay. shaqay raasatay, shaqadii heshay, shaqadii ka shaqaynaysay waxay soo qaadato. caruurtii iyo faamilka loo keenaa, guriga jaarka lagu bixinaa, waa la cunaa iyo waxay ilmaha iskuulka ku aadaan. gabadhii sidii shaqada u waday, ilmihii waa la soo weynaaday, iskuulka high school la dhameeyay, jaamacadii u dirtay. المهم ilmi iskuulkii aadeen. gabadhii marka waa soo doontay nin oo high schoolka isla dhigan jirayna soo doontay, yaqaanay edabteedii akhlaaqdeedii, yaqaanay faamilkeedana yaqaanay. wuu soo doontay. gabadhii way diiday. waxay tiri maya aan had goor diyaar uma ihi, faamilaa mas-uulka ahay, laba mas-uulna ma qaadi kari. wuu ku soo noqday, way diiday. nin kalaa yimid, way diiday. nin saddexaadaa yimid, way diiday. magaalo iska yaalay deganeed. magaalada waxaa loo geliyay marka gabadhan nin ma rabta inay guursato, iyadaa nin noqotay. sidii faraha laga qaaday. maalin maalmaha ka mid ah marka cunugii walaalkeeda weynaa ayaa wuxuu rabay inuu guursado. gabadhi waa faraxday. gabaruu raadsaday. gabadhiyaa lagu daray. wiilkii marka wuxuu go'aansaday hooyadiisa iyo inuu la degay iyo walaashiisa gurigalo inuu dego, uusan guri kala aadin. walaasheedii ku xigtayna sidoo kale waa la guursaday. walaasheedii kalena waa la guursaday. marka laba gabarna waa la guursaday oo waa la kaxaystay. wiilkana wuu guursaday, guriga hooyadiisa unbuu soo degay. almuhim maalin maalmaha ka mid ah wiilkii xaaskiisa iyo hooyadiisa ayaa isku dhaceen. wiilkii marka wuxuu la saftay, xaaskiisuu la saftay, asigoo hooyadiisa waxaan wareysanin. hooyadii way dhibsatay arrintaas. waa qof xanuunsan waaye. walaashiisa u timid, waxay ku tiri niyo waxaa samaynaysid ceeb waaye, hooyadaa waaye. calal aqal gabadh xaaskaana waxay kuu leedahay xaq, hooyadaana xaqay kuu leedahay. labada qofoodba dhegeyso, laakiin wax kasta naagteedaa saxsana iska daysid. hooyadaa way xanuunsan tahay, dhibaatada lagaa soo marin waa og tahay, isdeji. hooyadaana u tage, raaligeli. haddaa samaynayna soo maaha, niyo guri kala raadso,
naga tag hooyana hanaga dilin aniga hooy mas-uulka ah. ninkii marka meeshuu walaashiisa hadalkeeda maqli lahaa wuxuu bilaabay marka walaashiisa inuu caayo. wuxuu yidhi orod naga tag, caanis yahay ama guumays yahay oo la guursanin 30 sano kor u dhaaftay, wax ku rabo ma lahan, bax guurso guriga naga baxo yiri. adiga wax dhibka dhankeenu sida nin ku guursada ma ways inta meesha noo joogto. gabadhii hadalka waxay ku noqotay saaciqo, way naxday, ilina rabtay inay ka timaado, way iskontarooshi, way iska celisay. marka waxay ku tiri maqal wariya ma waynin in guursado, iskuulkii jaamacadeeda caleeshaanka u daroob galaysaa adiga wax u baratid, intaasoo nina ay soo doonteen caleeshaankiina u diiday inaan guursado. inaan maanta saan igula hadashid waa edab darro iyo wax wanaagsan ma ahan, waana ka xumahay inaan saan igula hadashid. way baxday qolkeedii gashay markaasay bilowday inuu oyso. iyadoo oynaysay waxay aragtay marka sawir meesha yaallo oo nimankii soo doontay mid ka mid ah. sawirkii soo qaaday waxay tiri kaale ninkaan ma taqaana ay tiri. ninkan waa ninka magaaladeena ugu qanisan soo ma ogid, waddanka dhan nimanka ugu sarreeya ugu xoolaha badan inuu soo galo. ninkan anu isoo doontay 3 mar uu igu soo noqday, waana diiday. sababtan u diiday waxa caleeshaankiina isku xisho, mar kalena hadalkaas ay dhihin. wiilkii hadalka walaashiisa qalbiga ka taabtay, wuuna ogaa dabcan, wuu ku soo orday walaashiisa, wuu ooyay, wuxuu yiri wallaahi billaahi tallaahi waa qaldamay, hadalkaas inaan ku dhahno wasakhnimay ahayd, wax wanaagsan ma ahayn, walaali iyo cafi. oohin walaalkii wuu ooyay, wuu raali geliyay walaashiisa. hooyadiisu u tagay, wuu raali geliyay, wuxuu yiri wax kastaan sameeyeen waa idinka raali gelina. ninkii isla markii wuu baxay, xaaskiisu u tagay, wuxuu yiri maqal guri kalaan degaynay, khalaas waa intaan ka badan. guri kale u jaartay, xaaskiisu meesha dejiyay, hooyadiisu u yimaadaa, wuu raali geliyay. walaashiisana sidoo kale maalin maalmaha ka mid marka hooyadiisa iyo walaashiisu gurigiisa ku casuumay, wuxuu yiri caawa inay ii timaadaan waaye, marti culusaan u imaanayso, waxaan rabaa inay ii timaadaan oo guriga ka soo cashaysaan. طبعا hooyadii waa ku faraxday, wiilkay ilaahay waa u hagaajiyay, gurigu degay. wuxuu bilaabay markii inuu hooyadiisa walaashiisa casuumo. guriga markii la keenay, guriga si fiican loo hagaajiyay, casho fiican la keenay. wuxuu yiri marka hooyada martiyaan u imaanayso wax yar kadib 8 o'clock meelahaas guriga iska fadhiya, albaabka la soo garaacay. waxaa soo galay ninkii oo lacagta lahaa oo walaashiisa soo doontay ayaa soo galay. way arkeen, gabadhii way garatay, ninkii wuu yimid. dadka walaalkiisoo jooga wala hooyadeedu joogto wuxuu ku yiri hadda ka horna 3 mar aan ku soo doonto way diiday, caawa waxaan rabaa markii 4aad iyo 5aad iyo 10aad inaan ku doonto. wallaahi wili naag ma guursan u dhahay, intaana adigaan ku sugayay ee waxa ku baryaahay aqbal ina i guursatid. gabadhii waxay ku tiri oo wili ma guursan miya may ma guursan oo yaa ku sheegay meesha inaan caawa joogo. wuxuu yiri walaalka khayr Allah siiyo, ayaan saaxiib ahaan jirin is aragnay, markaas uu yimid. wuxuu ku yiri wili ma guursan miya may ma guursan, maxaa u guursan weysay? walaasha aan jeclahay, walaasha qof ahna ma guursanay. markaas uu igu yiri walaashii anaa kugu daraaye ee caawa guriga imaaw, khayr Allah siiyo, asiga keenay arrintan inaan guriga imaado, maba idinka warhayninbo ee hadda mi aqbalaysa inay guursatid. gabadhii طبعا hoosay fiirisay, hooyadii waa faraxday. wiilkiina wuxuu ku yiri aniga waligeedii ahne waa ku sii haday iyadoo ku ogolaato. iyadina sidii ayay ku ogolaatay inay ninkii guursato. sidii ayaa gabadhii loogu sameeyay guur aad u qiimo badan ay ku faraxdo. walaalkiina wuu ku farxay, walaashiisna wuu raali geliyay. hooyadii iyo walaashiina waa isla degeen, ninkii xaaskiisana waa isla degeen. labadii kaloo yareed unbaa dhan la soo koriyay. qisadeena maanta intaas ayuu ku eg tahay. saa u jeedaan qisadan waa qiso aad u faa'iido badan, aad u qiimo badan. faa'iidooyinka qaar ka mid ah idin sheega, idinkana inta kala soo qoro. bakhiil ha noqonina, khayr Allah idin siiya. faa'iidada koobaad, wanaag haddaa samaysid kaama lumaayo. ilaahay laa yudiicu ajra man axsana camala. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu fasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. dhibaato kastoo kugu dhacdo ku sabir, wax haddaa samaysid oo ilaahay dartiisa u samaysid, faa'iidadiisaa helaysaa, adduunyaa ku helaysaa insha allah intaadan aakhara gaarin. ee markaa camal samaynaysid waxaa samaysaa ikhlaas, ilaahay dartiisa u sameey. camalka wanaagsan markaa ilaahay dartiisa u samaysid insha allah ajirkeeda adduunyaa ku heli,
intaan aakhara la gaarin. taasna waa sunanta ilaahay ka mid tahay. gabadhan fiiri nafteeda, sacaadadeeda, farxadeeda waxay u hurtay walaalaheeda, laakiin ilaahayna ma dayicin. wixii wax ka fiican ayuu ilaahay ugu bedelay. faa'iidada labaad, waxaan ka faa'iidaysanaynaa gabdhaha inay ka naxariis badan yihiin wiilasha. dad qaarkood way ugu diidi karaan, waa dhihi karaan maya, laakiin intaan arkay gabdhaha waxaa cad inay wiilasha ka naxariis badan yihiin. wiilal saan samay lahaa hadday jiraan waa yar yihiin, ma jira ma dhahay, laakiin waa yar yihiin. gabdhaha waa badi waxaa naftooda u hura walaalahooda iyo hooyadooda. waaqac zamankaana waa aragnay. gabar waxaa arkaysaa ma guursanayso, waxay kule walaalkiyaan korinaa, walaashiyaan korinaa, hooyadiyaan korinaa. xataa haddii guursato waa kortaaganta, hooyadeeda kortaaganta inay u timaado, ay hagaajiso, ay wax u samayso. bal some of them qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa xataa ninkooda inay isugu dhacaan arrinta faamilkeeda la ajligeeda. marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa gabdhaha inay ka naxariis badan yihiin wiilasha. gabdhaha dhan inaysan ahaynaa laga yaaba, laakiin badidan ka hadlooya. waxaan rabaa inaan ku caddeeyo, ma dhihin wiilasha kulliga wada xun yihiin, nimanka wada xun yihiin, laakiin arrimahan oo kale markii la gaaro gabdhaha ayaa ka naxariis badan wiilasha badidooda. hal ama laba wiil haddii la helo, laakiin percentage ahaan markaan fiirino arrintan gabdhaha ayaa ku sarreeyo, waana intay naga naxariis badan yihiin ay naga jilcan yihiin waaye. faa'iidada saddexaad, adduunyo waa lagugu imtixaamaa. waxaa laga yaabaa qof inaa wanaag u samaysay, meeshaa wanaaga ka sugaysay inuu xumaan kugu bedelo. arrintaasoo kale hadday kugu dhacdana waxaa lagaaga baahan yahay inaa qofka u sheegtid waxa u soo qabatay. listen aad tiraa dhegayso, haswaalwaalin, aniga waa qofka kusoo koriyey, kanii kanaan kuu sameeyey. waxaa u sheegaysaa inaa ku mana sheegatid keliya ma ahan, waxaa u sheegaysaa inaa xaqiiqada tustid. لأنه قفكان waxaa laga yaabaa shaytaan maskaxdiisu inuu galo wax xasna buu uusan u jeedin, laakiin markaa xasuusisid waxaa laga yaabaa dhinaca khayrka inuu soo kaco. لأنه qof walba wuxuu leeyahay khayr iyo shar uu leeyahay. khayrka hadii laga xoog badiyo, sharta ka xoog badiso, qofkaas wuxuu noqonaa mujrim iyo shaytaan. laakiin khayrkii hadaa soo kicisid oo soo shishidid, hadda bateriga markuu halaabo waa la gargaraacaas uu soo kaco. khayrka markaa soo kacday oo soo kicisid waxaa laga yaabaa inuu soo kaco oo khayrka xasuusido qof fiican noqdo. faa'iidada afaraad, haddaa aragtay inaa qalad gashay ha ku sii madax adkaanin, ka tanaasul, raaligelina ka bixi, abaalgudna samey. wiilkan fiiri khayrkiisa iyo shartiisa badneed, walaashiisa laakiin markay runta u sheegtay khayrkiyaa soo kacay. isla markii isma waalin wuu ixtiraafay, nacam uu dhah raalli ahaa, waxaa sheegtay waa sax, waana qaldamay. kafaara gudna wuu sameeyey fiiri, oo gurigiisu degay, xaajiyadiisa runta u sheegay. bal intaas kaliya kuma ekaanine walaashiisa wuu abaalguday, ninkii u tagay. لأن ما أقول ولا شيء نقول ماشي جوكت نينكي وتجي جور كان إنه لما ضنا وسميستنا بعد الله أسيق سببها. إذن حتى قلت كشيت قلت كالو حسوسيو هم لحد كان كتنازل رالجيلنا كبحي. فإذا ذا شناد قفك هدوك رالجيليو رالجيلين تقاضو dadka qaarkooda waxa arkay markaa qalad ka gashid rabtid inaa raaligelis albaabkii ka xiranayn kaana qofka inuu dhagax yahayba waxba galeenin markaa tiray raalaha maxaa u sameysay sidee saas u sameysay sidee ku dhici karta hey calm down istaji wixii waa dhaceen khalaas already saacad gadaal loo macilin karo waa dhaceen ibn aadan waa qaldamay haddana waa ka raaligelinayo raaligelinteeda aqbal qofka muslimka saasa loo baahan yahay markaa hadduu qofka qaldamo oo ku raaligeliyo hayleelana adiga waa qaldamaysaa birin raaligeli inaa ka bixisaa loo baahan yahay ibn aadan aan qaldamayni malahan kullu ibn aadam khata laakiin khayr al khata'in ya waay at-tawwabun dadka toobad keenayo waaye faa'iidada lixaad iyo tan toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobanaad iyo 11 iyo inta wadi kartid adiga laga rabaa soo qor khayr allah ku siiyo jazakumullahu khayran barakallahu fiikum وإنه جماعة صوصاتية قصة عصب إلى جماعة صوصات لا جاراي وحالة روا إنها دقيستي كفائدي ستي كعمل فشيد ولا لها كلام أسي قد بسيد بخيلها نقرين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله